dhegeystayaal ku bilaabe urur Kenyaan ah oo kor joogteynayay doorashadii Kenya ka dhacday oo magaciisa loo soo gaabiyo ELOG ayaa sheegay natiijada doorashada madaxtooyada ee uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati ay waafaqsan tahay qiimeyntoodii madaxa banaaneed ee ay ku odorsayeen sida ay noqon doonto natiijadaasi. Ururka ayaa sheegay in odoroskoogu ahaa in William Ruto ku guuleysan doono doorashada, waxaana ururku ku tilmaamay natiijada soo baxday mid hufan. Axmed Badar oo wararkaasi isha ku hayay ayaa haatan stuudiyaha la fadhiya oo fal hadda faafahinta ayna siin doona. Axmed, waxay sheegeen ururkani oo iyagu ah urur ay ku bahoobeen indhayaasha doorashada ama korjoogayaasha doorashada ayaa waxay sheegeen in qiyaastoodii iyo weliba daraskooda uu ahaa in William Ruto uu ku hogaaminayay 50.7%, halka markaasi guddiga doorashaduna ayagana ay sheegeen tira intaasi ka dheereen oo ah 50.49% inuu ku guuleystay Ruto. Waxay sidoo kale sheegeen in qiyaastooda iyo daraskooda Raila Odinga uu ahaa 48.7% codadkii la dhiibtay, balse sidoo kale guddiga doorashada tira aan taa ka soo fogeen ayaguna ay sheegeen oo ahayd 48.8%. marka waxay leeyihiin aad ay isugu dhow yihiin, waana marka qaar waa isku waafaqi karaan qiyaastii iyo daraskii aan haynay iyo guddiga waxa ay ku dhawaaqeen. waxa ay korjoogayaasha caalamiga ah ay sheegeen sidoo kale in Wafula Chebukati uu xaq u lahaa isla markaana shaqadiisa dastuuriga ay ahayd in uu ku dhawaaqo natiijada doorashada, taasina ay tahay waxa uu markaasi sameeyey. waxaa xusid mudan Axmedow in 4 ka mid a guddiga doorashada iyagu iska fogeeyeen natiijada doorashada oo ay sheegeen inaysan wax shaqaa ku lahayn. korjoogayaasha caalamiga ururka ay ku bahoobeen waxa ay sidoo kale Axmedow ku baaqeen ama ugu baaqeen dhinacyada iyagu tabashada ka qaba doorashada in ay maxkamadda ugu sareysa dalka ay aadaan oo ay halkaasi dacwadooda iyo doodooda ay markaasi geystaan. wata Axmed, haddaba bal xaaladda guud ee dalku waa sidee? wax qalalaasa ah oo dhacay ma la soo warinaya tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada? Axmedow, tan iyo intii lagu dhawaaqay xaaladdu waa ay degan tahay maanta oo ah maalinka labaad oo markaasi markii natiijada lagu dhawaaqa ah ma jirin wax rabshado ah oo laga soo wariyey qeybaha kala duwan ee dalka. waxaa aad looga cabsi qabay rabshado inay ka dhacaan gobolka Nyanza loo yaqaano ama magaalada Kisumu oo ay ku xoogan yihiin taageerayaasha Raila Odinga, balse sida wariyaha BBC halkaasi ku sugan uu soo sheegayo goobtaasi wax qalalaasa hadda kama jiro, balse waxaa xiran dhammaan xarumaha markaasi ganacsiga oo wax qalalaasa halkaasi kama jirin. marka lama soo sheegin wax rabshado ah oo ilaa imika ka dhacay qeybaha kala duwan ee dalkani Kenya. wata Axmed, waxaa jirtay in nin ka mid a shaqaalaha guddiga doorashada lala'aa. ninkan wax waraa jaaniya cirib meel u dhigay sida ay sheegeen booliska dalka Kenya. Axmedow, Daniel Musyoka ayaa waxaa la helay meedkiisa kadib markii muddo la raadinayay. waxaa meedkiisa laga helay kayn ku taala Lake Tuktuk oo markaasi iyagu markaasi u dhow buurta Kilimanjaro kuna taala xuduudda dalka Tanzania uu la wadaago dalkani Kenya. waxaa aqoonsaday meedkiisa sida ay uu ku waramay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalkani Kenya. 2 ka mid a walaalihii ayaa aqoonsaday meedkiisa, isla markaana waxaa meedkiisa helay dad markaasi xoolo dhaqato ah, iyadoo sida wargeysku uu sheegay laga dareemayay jirkiisa in waa jirdil loo geystay. Musyoka waxa uu ahaa Axmedow sargaalkii guddiga doorashada u qaabilsanaa bariga Embakasi oo ka mid ah mid ka mid a deegaanada Nairobi. aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Badar oo faafahintaasi ina siinayay dhegeystayaal. bal wararkii doorashada Kenya inuu weli ku jirnaayay, haddaba ma u bannaan tahay Raila Odinga oo doorashadan ku guuldaraystay inuu dacwad u gudbiyo maxkamadda sare ee dalka, maadaama oo ay xataa guddigii doorashadu ku kala qaybsameen natiijadii doorashada ee shalayta la shaaciyey? xasan sheekh cabdicasiis oo ah qareen Soomaaliya oo ka howlgala magaalada tan Nairobi ayaan su-aashaas iyo qaar kaleba weydiiyey. sharciga wuxuu u ogol yahay in uu ninka ku guuldaraystay Raila Odinga waxa u bannaan inuu taga maxkamadda sare ee la yiraahdo Supreme Court-ka muddo 7 beri gudahood. 7daas berina waxay ku eg tahay isniinta soo socota 8 saac maanta ilaa isniinta soo socota 8 saac inuu dacwadiisa maxkamadda sare geeyay. intaas fursadaas wadadaas ayaa u furan. haddiiba ay dhacdo inuu maxkamadda geysto dacwadiisa, maxkamadda sare imise maalmood inay ku gebagabayso oo ay go'aan ku soo saarto ayuu sharcigu dhigayaa? maalinka warqadahaas maxkamadda la geeya ee laga diiwaangeliya dacwada Raila Odinga, maxkamadda waxay dastuurka uu siinayaa fursad muddo 14 beri gudahood inay dacwadii ay ku dhageystaan ayna go'aan ka gaaraan muddo 14 beri gudaheed.
waxaa jirtay markii natiijada lagu dhawaaqayay in guddigii doorashada 4 ka mid ah ay yidhaahdeen natiijada lagu dhawaaqay annagu ma ogolin arrintaasi ma laga yaabaa haddiiba uu Raila maxkamadda u gudbiyo dacwad in ay culays u yeesho dacwadiisa wallahi kulli hadda saas isku haleynaya kulli asaga hadda dacwada saa ogahay aniga qareen ahaan hadda u hadla dacwadiisa hadda Raila hadii uu taga maxkamadda sare dacwadiisa say ay noqon doonto kulli hadda waan garan karnaa wuxuu cuskan doonaa oo maaragtay awood badan u yeeli doonto dacwadiisa sidoo asaga filaaya maaragtay guddiga 40 nin ee maaragtay guddiga ka baxday shalay ay yiraahdeen maaragtay lagu dhawaaqaya shalay lagu dhawaaqay maaragtay inayna waxba shaqo ay ku lahayn laakiin si sharciga la og yahay maaragtay nimankaas maaragtay 40 nin ee guddiga ka mid ka ahaa shaqo kuma lahan ku dhawaaqida lagu dhawaaqay maaragtay madaxweynaha lagu dhawaaqaya taas waxaa sharciga ama dastuurku uu xaq u siiyey ama maaragtay loogu talagalay inuu sameeyo maaragtay ninka guddiga u weyn ee maaragtay la yiraahdo Chebukati marka kulli Raila xaqiisa ama maaragtay qareemadiisa iyo maaragtay wuxuu is leeyahay taas cuska haddii sida ay sheegayaan dadkii korjoogayaasha ahaa ee la socday sidii ay doorashadu u socday ay ku tilmaamayaan in ay si fiican oo madax bannaan u dhacday taa lafteedu difaaca Ruto ninka ku guuleystay doorashadan isaga laftiisa difaaciisa uu maxkamadda la hortagayo culays ma u yeelaysaa ma laga yaabaa inuu garta ku helo si fiican aad difaac weyn u yeelaysaa maadaama wixii doorashadii iyo saad ogtahay maxkamadda sare 2017 maaragtay aad ugu dhawaaqeen yiraahdeen maaragtay guddiga doorashada shaqo kuma laha in wax yar kama bedeli karaan shaqalna kama bedeli karaan shaqalna kuma dari karaan dacwada maaragtay ama go'aanka ay soo gaaraan dadka wax dooranaya go'aankaas oo lagu dhawaaqa maaragtay goobta maaragtay wax lagu codeynayo ay yiraahdaan polling stationka oo maaragtay formka la yiraahdo 34A lagu soo diray oo haddana maaragtay ku jira khadka maaragtay IBC ku jira marka maaragtay difaaca Ruto hadii ay case maaragtay Raila uu go'aan ku gaarin oo maxkamadda taga aad bay ugu fududaanaysaa waayo warbaahin badan oo maaragtay ama local wadanka iyo kuwa internationalka ayaa maaragtay xisaab badan ka soo jeediyay BBC saa ogtahay idinka naftigiina BBC da maaragtay Englishka qolada la yiraahdo maaragtay Al Jazeera nafteeda way soo saareen kulligoodna waxay saadaalinayeen in uu Ruto ku guuleysanayo xisaabtii khadka lagu soo diray IBC ku soo dirtay markii laga fiiriyo marka Ruto difaac weyn uu haystaa kulli hadii wax kale ay dhicin waxay u egtahay Raila haduu ku adkaysto inuu maxkamad taga maxkamadda sare inay maaragtay xaqiijin doonto ay maaragtay ku cadeyn doonto in Ruto oo si sax lagu doorto kaasi waxa uu ahaa qareen xasan sheekh cabdicasiis oo khadka telefoonka isla magaalada Nairobi igu waramayay qaar ka mid